بسم الله الرحمن الرحيم. halkan maanta waxaan ku fadhinaa rag badan oo culus. waxaan doonayaa inaan anigoo ah Rashiid Diriye Faarax rag badan meesha ila fadhiyo inaan maanta ka hadalno baaq nabadeed oo aan u soo jeedinayno wiilashii walaalada ahaa ee dhibaatada ku dhex martay magaalada Warwood. haddaan nahay labada beelood Guuleed Garaad iyo reer Hagal anigu oran maayo hoos baan u deegayaa. waxaan leeyahay arrinta halkaa ka dhacday waxaan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed. waxaan leenahay barkad reer Hagal dad walaalaha tihiin, dad aan kala maarnay baa tihiin. wadogtiin maanta cadowga hareeraha inaga fadhiya, wadogtiin maanta dhulkeen inuu la haysto. maanta wixii dhintay waa dhinteen, waxaan ninkii dhintay waa dhintay, soo noqon maayo. shalay waad ogeydeen nin waalan oo xanuunsanayo beesha Guuleed Garaad ka dhintay ayaa lagu dilay magaalada Horfadhi. waxaan leenahay arrinta halkaa ka dhacday samir iyo iimaan wixii dhintay Allah ka siiyo, ninkii dhintay Allah ka siiyo. inta kana waxay lahayd ugu bareeyeen inay walaalnimadooda iyo nabadgelyadooda ay ilaashadaan. shacbiga u dhaqan labada beelood ee ka soo jeedanayo hadday yahay simo, hadday yahay cuqaal, hadday yahay waxgarad. waxaan ka codsanaynaa anagoo maanta meesha ku fadhida beesha Guuleed Garaad iyo beesha reer Hagal inay arrintaa lagu soo dabaalo nabadgelyo, in nabadgelyo laga qaato. maanta ka nool baa waxaan u ah anigu ninka dhintay adeer baan u ahay. ka wal leeyahay waxa loo sheeganaya leeyahay waxbay gacantay ka dhacdayna ilma adeer baan nahay. labada waa bidixii midigaygii kaa maanta nool baa in loo taliyo wanaagsan. waxaan leenahay samir iyo iimaan ninka reerku ka baxay Ilaahay ka siiyo. ummadda walaalaha ahna dantooda ha gartay arrintan ayaana siyaasadayn. dhibaatada meel kasta waa ka taacdaa, waa la dhacdaa, waana dhici doontaa. samir hala yeesho. maanta wadanta baahantay iyo danta khaadim loo soo jeesto. odayaasha ku jira ka kooban meelahana ha loo soo jeedo. go'aankoodana hal dhagaysto. arrintan la dejiyo la qabiile iyo balaaye mashaakil la gelin. waxaan leenahay haddana waxaan doonayaa inaan u faa'iidaysto ragga dhinacyada fadhiya oo biyacuusti labada beelood inay maanta iyagu hadal ka yidhaahdaan kelmadii ka habboonaa ee arrintaas oo kale ay ku odhan lahaayeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Faysal Cabdi Shire oo ka soo jeeda gobolka Cayn magaalada Buuhoodle. waxaan leeyahay wixii aan dhihi lahaa Cabdirashiid baa dhameeyay. horta marka hore ninkii dhintay ee ku dhintay Warwood ee maalintii dhawaad dhintay ee la yiri niman reer Hagal dilay. waxaan leeyahay dadku ka tagay samir iyo iimaan Allah ka siiyo, isagana naxariistii janna Allah ka waraabiyo. عون خير قبنا الله ugu bedelo dadkii uu ka tagay. waxaad moodaa dad aad u fara badan baa waxay raadinayaan si ay beelahan isugu dhuftaan ama dadkan isugu dhuftaan wada dhashay ee ehelka ah ee meesha wada jooga ee gareer wanaagta ah ee quud iyo qaaraanba ka dhaxeeyo. dilka foolxun baa dhici jiray. waxaan leeyahay walaalayaalow, ilmaadeerayaalow, adeerayaalow, waa laydiin fakeray idinkuna fakera. nabadgelyo iyo wanaag iyo tolliimo qaata, hangaraarac laguma dhutiyo. haddii mid la dilo waxay soo kordhinaysaa ma jirto. wanaagga uun idinkoo ka raacaa wanaagsan. waxaanan idiin sheegayaa isku cadow baa tihiin, isku culays baa tihiin, ehel baa tihiin, gacal baa tihiin. marka laydiin sheekeynayo dibi madoobe iyo dibi casiya dibi cabbihii libaaxu heshiiska la dhigalay baa laydinka dhigtaa. waxaan leedahay urur iyo siyaasad iyo maamul aan waxba idiin ahayn midna waxba idin tari maayo. colaadna wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho. dadka hadda wada joogay iyo guryaha wada degan ee ehelnimadu ka dhaxaysa un baana la isku quuqinayaa. aniga oo hadalka soo ururinayo oo markii hore Cabdirashiid uu dhameeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay khaatumada haydan waafajiyo, wanaag iyo tolliimada haydan waafajiyo, walaaltinimada iyo ehelnimada haydan waafajiyo. xagga wanaagsanna iska taaga dhammaantiin. waxaana ku wareejinayaa odayaasha kale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. magacay waa Cabdi Shirde Cabdi Guray. waxaan halkan ka dirayaa baaq nabadeed oo aan u dirayo beelaha walaalaha ah beesha Guuleed Garaad iyo beesha Axmed Garaad
ayaantii dhaweyto uu ku kala dhintay ninku waxaan leeyahay ninkii dhintay allah yarxamu raaximiin ilaahay jannadii ha ka waraabiyo beeshii uu ka dhintay ama dadkii uu ka dhintay ama carruurtii iyo ehelkii uu ka dhintayna samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo waxaan rabaa inaan kelmad yidhaahdo kelmaddaas oo ah yaan laga faa'iidaysan oo yaanu cadowgu ka faa'iidaysan labada wiil ee maadeerka ah ee sida khataanka ah isugu dhintay cadow baad leedihiin hareeraha idinka jooga haddaad tihiin beesha guuleed garaad iyo beesha axmed garaad niman wada dhashay baad tihiin niman walaalaa baad tihiin hareerihiinna waxaa taagan cadow hortiinna waxaa taagan cadow waxaa laga faa'iidaysanayaa oo la isku dayayaa in arrintaa la siyaasadeeyo in arrintaa wax kale loo bedelo dabadeedna la yidhaahdo wiil reer hadana ayaa dilay wiil barkada dabadeedna barkadku ay dhibaato keenaan dhibaatadaasna wax dan oo ku jiraa ma jirto labada beeloodna wax dan iguma jiraan dadka walaalaha wada dhashayna wax dan iguma jiraan waa siduu uu sheegay Faysale dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan idin leenahay haddaad tihiin labada beelood ee barkad iyo axmed garaad soo dhameeya arrintaa guddiga loo saaray iyo culimada loo saaray iyo maxkamadaha loo saaray intaba ku dhameeya isimadu ha galeen oqaashu ha gasho waana idin salaamayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد وحالي هذا محمد يوسف أغدون waxaan rabaa marka hore inaan tacsiyo u diro heerkii qoyskii uu ninku ka dhintay ilaahay ha u naxariisto kullu nafsin daa'iqatul mawt qof kasta nafta iyo mawt qof kasta mawtka uu dhadhaminaya si kastaba ha ku dhintee marka ilaahay ninka ha u naxariisto dadkii uu ka dhintayna samadiye iimaan baan leeyahay markaan tacsidaa ka gudbo waxaan rabaa inaan halkan ka diro baaq nabadeed labada beelood ee walaalaha ah ee accidentu kala gaaray waxaan rabnaa oo aan halkan uga diraynaa baaq nabadeed inay hawsha ku soo aftiraan sidii ugu dhaqsaha badan ee ay ku kala qanci karaan ku kala bogsoon karaan wuxuu marka ay dhibaatadu dhacdo waxa fiican wixii lagu kala bogsoonayo qisaastu way jirtaa oo alqisaasu xayaatu lakum ilaahay baa yiri nolosha idinku jirta inaad isqisaastaan marka wixii lagu kala qancayo oo qolo waliba ku qanacsan tahay ama qolada dibku gaaray baa inta badan la qanciyaa wixii ay ku qanacsan yihiin ay ku qanci karayaan in laga la shaqeeyo wana aaminsanahay meeshaas kulay odayaal iyo uqaal iyo dad tala qabeen oo ay hawsha xalin karaan way joogaan horena waxyaalaha iyo waxyaalaha ka cusub dhici jiray oo wad xalin jirteen marka aad baan u kalsoonahay inaad hawsha maaragtay xalin kartaan ilaahayna waxaan idinka rajaynayaa inuu idin fududeeyo maslaxada iyo hawsha aad ku jirtaan ee labada beelood ee walaalaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا محمد عباس جلة أو كسوتش هذا وودود وحلا يحي نكيد التإله هون حريص تسمر يا إيمان وحلا يلبض بلاد ولا لا ورعدوا بلدي كيف تشجنا هذا هولها الماشى اللي لو رجيو وحلا نهاي ذاتك إسكوكين دري أما هولها ماشى كتيرة كيف تشجنا هذا waxaa leenahay dagaal wiil baa ku dhintay sidii nimankii hore ay u yiraahdeen wiil kuma dhasho waxaa leenahay barkad iyo axmed garaad war nabadda wax ka wanaagsan ma jiraan war cadow baynu leenahay war aan feejignaano oo aan ka wada shaqayno sidii aynu dalka inaga maqan oo xoreysan lahayd cadowgeena aynu meel isaga soo wada jeesan lahayd waxaan leeyahay xoog udhurow wanaagga aad samayseen iyo shalay ficilkii dhacay aydan ka jawaabin ilaa khayr idinka soo meel kale aad keenaysaan wanaag ku wada sidaa wanaagga uga shaqeeya mar walbana la garab taagnaada tolkiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أخت مقعد واحد يا عبد الساق أحمد يرد. أنا جوا كوه ضياء مقعد شبوه ولا وحان كمان شاليدا كاتمو بعد كده شجاع من حد كل كوه ضياء. أنا جوا أحلى ما بيراد وماشي ولا فضياء بيش أهل جراد بيش بركة هذا بلاد جراد. وحان تعسيب درينا منكي مقدم تي فديتي ويلكو
iyadoo aan maqalay dee si kama ayaa wax u dhaceen haddana arrintaa iyadaa waxaa la doonaya in si nabadgelyo aad ku dhammaysaan haddii ilaahay ii gudbiyo arrintaa iyadaa aad baan u jecel lahay in arrintaa aad nabadgelyo ku dhammaysaan oo dadkiinii magaranaysaa sidii cadowiyada hareeraha idinka xigaa iyo weerarka laydinku haya idinkoo ka fiirsanaya sida macnaha laydinku doonaya in laysuu kintiro magaalo badan baa idinku soo foolle macnaha cadowgan aad isu kaashada cadowgiina dadka aad macnaha doonaysaan ee aad haysataan cadowgiina u dhigtaan anigu waxaan idinku guwaabin lahay inaad arrintaa iyada aad samaysaan nabad ka tashataan samir iyo imaan ilaayada ka siiyo salaam بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد العزيز سلمان شرقوري وأنا هالكم باقنا بدأ وجه دينا يا أرنتي ما أنتي لو تكن علي نواحي ورود شغال يركون أحمرتي لوضع جروب تغيرها أو شخصية علي بكتة سيرنا عندنا نهاي شالية كنا Minneapolis waxaan u leenahay wixii hore waa dhaceen yaan wax dambe laga dabageyn fiiriya waxa idinka dhexdiina ah wanaagga iyo wadashada dhexdiina taalla fiiriya dilkuna waa dhacaa qisaastuna waa dhacdaa wax walba waa dhacaan waxaa loo baahan yahay inaan si jaahilnimo ah loo kala ficil qaadan si akhyaarnimo ah oo tolnimo ah oo islaamnimo ah loo kala xaraqo qaato oo loo wada shaqeeyo waxyaabahaasina waa wax dhacaya ilaa samaanna waa dhici jireen haddana waa soo noqonayaan mar walbana sida ugu wanaagsan baa fiican in looga shaqeeyo islaamkuna xal taasunbaa u ah in wixii la jaahileeyo oo la qabyaaladeeyo oo la siyaasadeeyo wax danoo ku jira lama arko marka waxaan u jeedinaynaa wiilkii dhintayna ilaahay ha u naxariisto waana ka tacsiyinaynaa arrinka hadda taaganna inaan wanaag laga xaray qaato wanaag lagu soo afjaro waan soo dhaweynayna insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وإذ سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم رجينا أن الله الله إنه آدم السلام يا أنا جو حال هذا عبد موسى جامع حاج عبد يرنا والي هذا رجل ماشى فردي ودوا كوين هذا إن اللي قرنا يا سروده وحوي أرنتاس آدم وجحناي إلى يوم حريص طويل كه beerku ka dhintayna samir iyo iimaan Allah ka siiyo shirkana waxaa noo qabtay Rashiid Diriye oo isaguna noo yimid oo dee labada reerba wiilkana adeer ilmaadeer ay yihiin kan kalena uusan waxba u jirin isaga yiri xafladaas qabta anagoo awil bay nagu jirtay waxaanu idinka codsanaynaa in arrintaas sida ugu wanaagsan ee ugu dhib yar oo aan marnaba qori laysu qaadan sidii kale ee xala inaa ku dhammaysaan waxba idiin sheegi mayno rag xaajo yaqaan baa tihiin khasaare iyo geerina waynu naqaan maanta wacyiga jirina waa ogtihiin ilmaadeerayaalow qoriyaan laysu qaadan waxaani wax qoraabay ahaayeen way dhaceen waa wax ina ka weyn dhibaato kale ka dabageynina oo sida aanu maqalayna meel wacan baa iska taagteen qoladiina reer Woodwood waa idinku boorinaynaa idinku ammaanaynaa halkaa ka sii wada kuwa kalena waxaanu jecel lahay sida ugu wanaagsan ee xala ee lagu kala qaboobayo inay u qabtaan wax sidaasaanu idinku ducaynaynaa ilaahayna ha idiin fududeeyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا خاتمو وحنا آدي وحماي ننكي ماشا كل انتي اكسدنكي دعي وحن لا إنا لله وإنا إليه راجعون وحنا آد وقم هدنقيا أرنت أي في سمايين وناقة خير ورود waxaan leeyahay isu samra buuhoodle iyo Woodwood waa isku meel waa isku dad waa isku mid
dhinacyadiinna waxaa fadhiya dad cadow idinku ah aan idin rabin aan idin doonayn aan idin arki karin waxaan rabnaa arrintaas wanaaggii aad ka shaqayseen inaad ku dhammaysaan oo aan xabad iyo buuq iyo qaylo intii hore dhaafiisan